السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابتي قيمها يقدرنتي قمدنا كل أن برت عن كل يوتيوب كشيء ما فلا ورسنا ولا عليه قيمها يقدرنتي قمدنا ولا شيء مشرف وقبرتي المرور بين سوق بسو قصيين قروح بدني كسر أرسلنا دافع هذا قصيين كعبر قاعدة شمدنا ما أنت قصد الشيء ما يدين ودو حواي ما أنت قصد الشيء ما يدين ودو حواي قصة كسابسن والدك هي عبته أنا مكان له ووالد لبكر دليل حق يقولي والدك قصة ساسن يعاور بين الكشكيو طبعا رأيي إنه أسوق سوق كرتين وأنا كهذا الكرتين واسكو فكرنا وهانكرنا كل فكرنا وهانكرنا وحاجري وحالي رهرت وح أنت عاد يعني مثلا دبقة بشلين بلا دبقة بتعمر هدي وحكاتك عن دبقة بشمله وحاجري عندنا يراء هو يدي يسقى هو يدي وحيد شيء صدح البود لبو ويلي وحيد شيء قبر wiilkii curada reerka ugu weynaa iyo hooyadii abahayga nool wiilka curad ugu guursaday maamadii waxay la noolayd wiilka weyn gurigiisa ay ku noolayd iyaga oo yani mesela nolol fiican wada qaatay oo wada nool ayaa waxa maamadii arki weysay gabadhii uu qabay wiilka weyne gabadhii xaska xaragtay maamadii sadohdeed ahayd yani maamadan way xumaan kartaa qof xun way noqon kartaa محل هاي دبعي جدا سيدا نقول كره لكن محله بهاي هاي وحلو بهاي هاي هذه إنا كفكرت مع مضة ويل كأ هدنا عاد وذا شوكتين ويل كذي محايل هو يضع أو كلوي إنا أسمرتد آيات لهذا هذه حماته ملهن إن عاد عاد حمان كل رقم تدا إيه حماته محايل هو والد دمال وضح سمكرتد ملهن مال أو فكرت منه أوكي على كل حال قبلي أيام وها إسكا دي حركتي مامدي أي أركي كرويسي أبغو مامدي ويل كده هو يدي قولي كمو برنين أو تجمو صدقين لكن وحالي رواية تغلم ده هو كتجا أيال تسا في علاج الحين أي كل رقم جرتي مامدا ويل كأي صده ده ويل كيدنا طبعا سكستو ولا هل تشري لكن سه لك تلاقوا ميسين تشرين أما كما يهوس قادة تشرين هذا الكيس وحكم يسوق قادة تشرين أوكي maamadii markay aragto gabadhii saddexdeeda oo ku qaldamaysa mar walba oo ereeyaq qaldan ku dhahayso waxyaabo qaldan ku dhahayso wiilkeeduna ficil qurux badan uu ka bixinaya aanu jirin dabcan de maamo wayeelo weeyaan oo isaga tagaysaa ma u dul qaadan karayso dhibaatadaas ay ku sugan tahay ay muddada dheer ku soo nooleed ala kulli xaal adigu maamadii waxay sameysay way u dul qaadan weysay dhibaatada ay ku sameynayso gabadha ay saddexda u tahay dhibaatada ay ula ku galayso islaanta saddexdeeda maamadii way xanaaqday guri kale ayay lahayd maamada guri iyadu ay leedahay ayaa jiray oo cidla markaa ahaa cidna aan deganayn gurigeedii ayay aaday gurigii cidlada ahaa ayay aaday waa guri weyn oo cidla ah gurigii weynaa oo cidlada ahaa bay tagtay maamadii cid ka warqabta malahan ayadoo gurigeeda joogtay cidlada ahaa oo cad la joogta habayraati aan jirin ayaa maamadii waxaa ku dhacay dhiigkarka ku soo booday dhiigkarka qabtay dhiig baa ku booday maskaxda waxa ku furay dhiig ku furtay maskaxda markii dhiig ku furay oo maskaxda dhiig ku furtay cid ka warqabin gabar waxaa jirtay u soo gali jirtay oo guriga u nadiifin jirtay gabadhii marka furay haysataa guriga isaga soo furtaa gabadhii waxay timid mumkin waxa laga yaabaa maamadu muddo dheer in ay xoogaa maskaxda dhiig ku fursanayd oo cid ka warqabta habeeraatay aan jirin guriga cidlada ku jirtay wiilkeeda maxaa la rabay inuu soo tago markii sheekada ay soo dhaxmaray maamadu markii guriga ka soo tagtay maxaa la rabay wiilkeeda inuu ka soo daba tago oo yiraahdo hooyadii la noolaanaya muu sameyntaas gurigiisu ku noolaaday naagtiisa ilmihiisu la noolaaday maamadii cidladaas iyada joogta gabadha albaabka soo furtay albaabka markay soo furtay xartay maamadii dhulka taala maamadii isxaaf bay u dalabtay markaas wiilkeedina wacday oo u sheegtay maamadii istaarka la geeyay waxa la yiri maamada qaybo bay gashay ama koomay gashay dhiig baana maskaxda ku furay maxaa la yiraahdaa amaliyad bay gashay ama qalliinka lagu sameeyay dhiigya laga nadiifiyay waxay qaybo ku jirtay 2 isbuuc bay qaybo ku jirtay maamadii 2 isbuuc markay qaybo ku jirtay way soo roonaatay qaybadii iyo dhiigga maskaxda muddada dheer kaga jiray ku furnay cid ka warqabin wuxuu ku sababay shalal dimaaq yani maamadii shalal bay qaaday shalal dimaaq Soomaali inay han marayna shalal dimaaq wax kale oo Soomaalidu ugu fasiro ma garanayo shalal dimaaq yani qalal oo dhinaca neerfayaasha maskaxda ka yimid ay qaaday maamadii oo ay sababtay dhiigga maskaxda ku furay maamadii fiisioterapia loo qoray sida fiisioterapiyada lagu sameyn jiray
muddo dheer bay nafsi tarbiyadii xoogaa way soo roonaatay oo way dhaqdhaqaaqi kartaa laakiin weli shalalkii kama bi'in yaa sabab u ahaa maamadaas shalalka ku dhacay yaa sabab u ahaa maamadaas dhiigga maskaxda ku furay yaa sabab u ahaa maamadaas guriga ka carartay dabcan waxaa sabab u ahaa wiilkeeda waxaasoo dhan maxaa yeelay haddii uu naagtan meel ka saari lahaa wiilkeeda oo dhihi lahaa walaalay miya haa hooyaday hadday qaldan tahay u samir waa hooyadaa oo kale hadduu hooyadiis la safan lahaa haa صح ويدي يرد مركي كدكتي محو يرد uga dabdeg waay muxuu uga daba bixi waay sabab si hooyis cid ugu sidaan wanaagtis ilmihiisa ula joogo hooyis waa yeela oo isaga inta soo leekaysiisay waalidku waa shay cajiib ah waalidku waa qaali qofkii waalid haysta ayaana garanaya qiimaha waalidku uu leeyahay maanta toole qiimaha waalidku uu leeyahay iyo maxaa la yiraahdaa bari kamaal meeshi waalidka aragtid in ilmaha ku dhigayaan ay shay maanta idin la wadaagaysay maanta toole waalidka meesha dhigtid hadeertaan uu nadam hadda wuxuu ku qabanayo hadda uu soo kaxeeyay maamadii gurigeedii ka soo kaxeeyay uu gurigiisii keenay uu xanaaneynaya maxay ku taraysaa hadeertaan bal ii sheeg xanaana hadda xanaanaysid iyo gurigaaga hadda akeentid maxay ku taraysaa shalay waxay u qaban weysay shalay markay tagtay waa la tagi weysay maxaa u qaban kartaa inkastoo wax walba qadar ilaahay yihiin haddana taxadar baa loo baahan yahay maanta toole isagii waxaa ku jira nadam yani shalayto uu shalayto mooyaa maanta haddii gurigiisa ay joogi lahayd ama uu ka daba bixi lahaa shalaytada maanta shalaytama ay kuma jireen hooyadiis waxa laga yaabaa calooshan waxay uga qabatay markii ay tagaysay cidlada markay ku dhacay calooshan waxay uga qabatay waa laga yaabaa dadka waalidkooda dayacayo ayaa fideogan ku socdaa iska ilaali waalidka inaad dayacdid waalidka xaq ka gashid maxaa yeelay waalidka waxaa ka gashid ilmahaaga ayaa kaa galaayo adigana saa waalidka u gashid ilmahaaga ayaa ku galaayo iska ilaali marka in aad waalidkaaga aad dhibaato u geysatid in waalidkaaga aad xaqdaro u geysatid in waalidkaaga aad xaqirtid iyo in waalidkaaga xaqooda aad ka soo bixi weysid hadaa waalidkaaga haysatid ka faa'iideyso jaanis aad haysatid waaye haddii waalidkaaga dhinteen sidoo kale jaanis waaye inta aad nooshahay waa u cibaadayn kartaa sadaqa u bixin kartaa ducooyin fara badan baa u bixin kartaa intaba u samee waalidkaaga mar walbaba haddii aad nooshahay jaanis waaye hadduu nool yahay waalidkaaga iyo hadduu dhintaba ka faa'iideyso hore haddaad uga faa'iideysanin uu dhinsan yahay sadaqooyinna u bixi 24 sacna u ducee waalidkaaga maxaa yeelay ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa uu siinayo ducada iyo sadaqada u bixinaysid waalidkaaga walaalahayga qiimaha iyo qadarinta iga mudan sheema maanta waxay idinla wadaagaysay dadka waalidkooda caasiga ku ah ee waalidkooda dayaca ee waalidkood sida xuru gala ayay maanta qisadan bay idinla wadaagaysay yani maalan qiso wallaahi qalbiga ay xanuujisay weeyaan oo aad baan uga naxay qisada tan waxay ka dhacday wadankan aan joogay ayay ka dhacday waana qiso xaqiiqa ah ma ahan qiso dad la yaqaano macruufa weeye qiso oo yani maalan ku tiro kuteen ma ahan haddana hooyadii iyo wiilkii way wada nool yihiin laakiinse maamadii oo waxaa la nool shalal dimaa qabta oo gabigeedaba dhinac dhan qalalan yahay ayaa la nool marka walaalahay maanta sheemeyntiisa idinla wadaagaysay waana ku mahadsantahay daawashadan quruxda badan waxaan idinka rajaynayaa inaad ka faa'iidaysatiin waalidiintiina baariyaalina u noqotiin bismillaahi kariim inta aan waqtigu iyo taamku idinka dhicin ayaa idin rajaynaya waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu